xildhibaan dawladda federaalka oo muddo badan kula soo shaqeeyay 4 sano ee joogtay kula soo shaqeeyay jacayl dalka wanaagiisa nahay tixgeli intaan oo meesha fadhisa codsigooda tixgeli Axmed Madoobe xabsiga ooy beesha caalamka waxaan leeyahay waxaad na barteen waxaad na bideen nooga dar waxaad noo sheegteen dimuqraadiyad wax la yiraahdo oo aad wadamadiina ku dhaqdiin hanti aad ku bixiseen horumarinteeda ilmaha aad wax soo barteen ee waddankaayna ku soo noqday dimuqraadiyadii ay aaminsan yihiin laakiin waa been waxaad wadiin Axmed Madoobe 2 qof iyo 3 qof iyo soo qor qofkii i doortaa kala baxa ayaad ku taageerteen dimuqraadiyadda aawe Mareykanka meel walba Ingiriiska meel walba waxaad sheegayseen waa fashilanteen fashil waay xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay in wax walba runta laga sheego haddii aan runta la sheegin Yamamoto iyo James Iswaan waxay cadaadis ku saareen dawladayna iyo madaxdayna nin la yiri 2 qof 3 qof iyo soo qor qofkii dooranaan kala baxayaan farmaajo taasoo sameynaya baldiida hadana idink bal taas hadii la sameeyo hadiidaano bari ay leeyihiin si Soomaali dhabarka ugu goodo annagoo intaan aan mareyno meel walba u tagayna si ay doorashada ugu qabanayso cadaalad xamo ku jirto inay yiraahdeen inay rabaan annagu dad wax bartibaanahay dad wax fahansanaanahay dad aragtideeda lahaanahay waxa aan ugu wadiin beesha caalamka inaga dhaafo Soomaaliya waa qaan gaadhi 60 sano ay gaadhi Axmed Madoobe iyo daniba barasharkiina ay ku yimaadeen wallahi aniga hadaan ahaan lahay kuma imaadeen waayo anigu safiiran ku aqaana Yamamoto safiiran u aqaan James Iswaan safiiran u aqaan safiirkana waagi dawladda inay xayigeeda ay jirtay waa la daba kici jiray security aan daba dhigi jiray xaq baad u leedihiin in security ladin daba dhigo meeshaad ku kaadinaysiin la ogaado waxaad qasaysiin la ogaado si dawladnimo aad noogula shaqaysiin haddaad noogula shaqayn waaysiin James Iswaan iyo Yamamoto sawaradooda jidka lagu gubaa qof kasto oo anaga inaga mid ah aniga ba Allah ka dhigay banaanka lagu gubaya in dimuqraadiyadda aad ku fashilanteen in la ceebowdeen in Soomaaliya faraha aad kula jirtiin ayaan sheegaynaa inta kadib waxaan u soo laabanayaa Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo magaciisa dani oo ani meesha waad ku gubanay 20 sano maamul gaari ayaad madaxweyne u tahay rag baa kaaga horeey meesha Axmed Madoobe waxaan baarsan tahay anigu garan ma waa fahmi laa walaalow deegaankaaga ku noqo xildhibaan la soo ahan labadii dawladood ugu horeysay oo tan markii laga tagaan xildhibaan isdeen walaalow dadka aad maamusho dawlad jecel waa dad xadaarad la waa dad fiican waa Puntland ku laabo meel fadhiiso waxaad ku faraha kula jirta ma qalad baa mas waa sax ka fikir intaas un baan kugu soo koobaya Axmed oo gooray noqoto waxa noqoto cadaaladda ku soo qabanaysa waxa ku roon oo taladayda ay tahay inaad u soo dhiibto cadaalad maxkamadan maanta oo halka mitir ku jirta halka kiiloomitir wax ka yara deganta ku jirta waxa ka yeela fayl dheer ee salaadiintii dadkii muxuu ahaa qiimaha badnaa oo ninkii ganacsadaha ugu dambeeyay dan in adeerkiisa ay ugu dambeeyay dadkii Allah siya lagu haystaa marqaatiga nool oo laga qoray waa joogan si ay diiwaatana hal tago faylkaas waa buuxa xeer ilaalintii madaxweynuhu yay ka xishoonin inay dhahaan hebelow adiga waxa ka yeela cadaalad dacwad haddii aad arintaas inaad ka fakisiin isku daydin hadda Soomaaliya ma wada fakanayso ninka shalay 18 sano lagu xukumaay muwaadin Soomaaliyeed waa musuqmaasuq uu sameeyay
warkii dad dhan laayay ka warrama kii dalkeena diyaarado shisheeye ku soo hogaamiyey iyadoo oo aan ka joojinay ka warrama kii dalkeena dal shisheeye u jaajuusay ka warrama axmed madoobe intaasoo ku sifoobay marka uu didkii owlaay laga reebo fadlan waa idin baryaynaa maanta maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha xujaa qoorta idiin suran inaad xirtiin xujadeeda qoorta idiin suran ama sidaa ku daysto oo ha idiin joogo oo kuwii noqda